kala leenahay aniga rii isku waqtiyaanay aniga isaga qolku waa wada furi jirnay saas ahayd way waan ka soo horreeyay waan ka soo horreyn jiray adiga iyo horta waayada xageed ka baxday te maxaan ka baxay dheema ma ka tagay uu ka tagay qolka qalbeentiisa arag حاجة ما إلها كعبسة سكيو إيك دائما هكو تيسيني حوجي يرقرو باش وين بقصنتها هاي ده بقول كي شن يلا بعتن قرئ واحد خلديهين لكن والله ما كيم والله دك حاجة ما الكي هراء كسويرة دعوة واحد عقلي واحد كدر لاين توفيعنا دك حسن تاجرها ما يدول النمذ أنا دول النمذ أنا ما بحلبة إيه وريني أنا دول النمذ الربع أنا دول النمذ بدل سمايو بدل سمايو دول بالقيس ليس إذا كي دولة الويرية ليه هراء الويرية الويرية ملاحظي هراء حوجي بدل سمايو يعني حوجي ciidan cusub oo sii socdo dhankaas iyo furunta oo dagaalka marka la baaro guriga la fatasho hadii laga helo hubkii la baarayo laga helo meeshaas in hubkaas raalli ahaada oo sharka muxallada dhiib oo waxa la ayada ka hadeysay ما يولي مايا مركز ولي كما تناسلي هذا عايز هذه كلام halka baa ku kaamsan xataa ka soo horjeeda dadka ku leeshinaysa moogtahay may weliga tahay waa ayada eeg inagu sanayna abtiga laan dheer ay laan dheer hay warkeen waxbaynu falanqaynaynaa marka wax la rabaa mucaaradka laftigoodu inay wax qiraan محافظ كنت إني إكستريم نقول لما بعنا دي كانت دوي حناقة يا قفكي هذا ما يشاركيو هذا لا هي دائما عايزة كاتو جسيس بدل موقف كاجي اسمه بدل يدانو ما موقف كهبدلن لكن وحقر إن حالته حماطوي دبقضيو الدولة دي يسراكيشي دولة الشرق والسعودية سويرة رئيسة ده محاقرة ما ننقري وتقري يوم بعد جوابتي سوتاي نقري دقها ما هي إمك حالته وكفرتها إك ما حالته إمك ولا إك حالتي هدات تراهض إن مدحوينك باب القبرات بل ويرر يا شلي محافظها خليه هوري أدواء بل ويرر يا شلي محافظ بوها أنتوا ذو حاسة شلي ما تكون كفدين دولة المحافظ دولة المحافظ كوهد بيستيلا يسي هدات تراهض وحوى اللي بواق أوكي وقرين شاركيو شلي marka raggan kursiga ku fadhiyeen inta waa in lag bismeeyeen dadka iyaguna way weerarayeen sidaas ay u dilayeen intii un baa iyagana maanta lagu sameeynaya والمسكين هلكا إيجاسي وايل بس وقال ها وايل يقص وقال السلام عليكم ورحمة الله هلا قصو قال دمشق النبي موجود إيكاد ماشى وحوي دولده هول بيوضع وشقينا يسا وحي شلي أها هدي حمايانا نيكي سميه با إيدا له هدي سمايانا وراقدا نيكي سميه با إشكاله قالوا لنا وحي ترى هذا don't think about yesterday think tomorrow دولده waxa u dagaalamay reebud laana la إيكاد أبتي حسن ريركي أو لا دقالما هذا شير قبتين بشري إيكاد ليش أقول يا ري أبديتك أنا قد وجينيسا إيكاد وحوي الدولة وقفل بوحي أي وناجي سنة يدا الوحي وناجي سنة وحي خلطنا يدا وحي وناجي سنة يدا أمانة هذا الدولة ده موضوع شيء كتير وشقينيسا قوري حركم هالشيء سيتري شيخ شريف وحوي ماشي أن كدوا بالميس الدولة بقى كتير سيتري nimanka la yiraahdo xawaadliya bursado isxambaarsan waxa yiraahdeen meeshan laba barqab ka wada qoqdo annaga meeshan madax ka ah hadii la ay ku roonayeen nimanka habar gidir oo baakinada ku jiro oo muudka inta galay toorobinka ku daawanaya iyaguna waxa yiraahdeen waa idin soo soconaa soo xafaantay maaha idinku marka dawladdu haday wax islaaxinayso oo nabad keenayso oo kala dambeyn keenayso oo shidaal la idin soo saarahayo oo dalka horumar loo wado dagaalkan baraha bulshada aad ka wadaan maxay tahay ma guryihiin muudaan rab inaa qurbaha inta ka noqotaan حمر ده ودع ده اللي يراد ميدا رمين أد خيبت اللي ضيء جسيرة إيه لمن بقي بهاش ما كل هذا قلق إيه أنا كسر ضابط كل ضبارات مرة يعني أبتي إيه كذي نقد أبتي ومعانو أبتي معانو كذا ما يرى هاوي هلا سجن دلك هرمر بوص على شدال بالقضية وناك بعص شدال لك ما قولي كرو هرمرنا لما جالسين كلا ضدك ولا خبيصا madaxweynuhu wuxuu marahayaa weesha gowrac dibgo ha ku quustee ay me qasan ku qaadanaysaa hawiyo waa inuu hubka ka dhig horta balu kaaji madaxweynuhu hawl fiican buu hayaa hadda waa bilaabay 30 milyan haysta darada jaajay meeshan
kaydka hubka maaha hotel raaxa ha noqdo dowladda gacanta ku haysa canshuurta bixi edab yeelo sheekh shariif waa loo sheegay meesha waxa weeye laba baarqab meel yeelan karta anaa madaxweyne ka abaa la yiri sambalolshe iyo ninka la yiraahdo ninkii la oran jiray xasan cali khayre waa loo sheegay nidaamku waa socdaa dowladnimadu waa shaqaynaysaa idinka cagta u dhiga xaggee u yaacaysaan maba rabtaan soomaaliya haddaad tihiin dowladnimo inay dhalatay waxaad rabtaan qayle inaad ku dhamaysaan oo baraha bulshada saa ugu murmaysaan ma waxaad rabtaan inaad dowladdan u murato no madaxweyne xasan sheekh maxamuud boqorka dooran wuxuu taagan yahay wax waliba waa soconahayaan aynu ogaana bal marka meesha salaadu ay isugu toosto annaga waxaan rabnaa inuu muqdisho soo aslaaxiyo dadku shacab iyo dowlad inay noqdaan puntland loo imaado puntland waa la soo gaaray la baryima puntland iyo somaliland iyo la baryimahayo laakiin horta bal dowladdan dhan ha isugu toosto puntland iyo nimanka la yiraahdo somaliland iyagu waa ultimo moderno waxa waaye filimka dhammaadkiisa waaye ma fahamtay jubbaland iyo galmudug ka horeysa baa leedahay jubbaland iyo galmudug iyo hirshabelle iyo koonfur galbeed waxaasna in la islaaxiyo dadka shacab laga dhigo hubka laga dhigo oo la magalsiyo qoladan marka reer somaliland iyo reer puntland reer somaliland iyaga jaaniska ugu fiicanba taas ugu jira waaba niman habaaran meel laga jiraba ma yaqaanaan sababtoo ah 37 sano cid ay la hadlaan iyo cid ay masiirkoodii kala hadlaan inay go'aan iyo inay joogaan meel lagala hadla lama arko ma fahamtay taleefankaas waa dinsan yahay dowladda markaas laakiin markaas haddii dowlad saxa la helo waxa weeye cid bay la dhiil garayn karaan oo waa u toosaysaa annaga reer puntland haddaan nahayna haddaanu aragno dowladda awooddeeda inay aad u shaqaynayso safety kacaankuna weli waa sideedii hawshu ay tahayna waa soo dhaweynaynaa haddii aanu wax goosan karno oo gabaxgabaxlayn karnana waa gabaxgabaxlaynaynaa horta bal markoo ciyaarta ha socote bal noo kaasya oo wuxuu habar gidiraan geed cambaa hoos dejaa halka u dambeeya waa hubsaa horta aan hubsanno odaygu meeshuu farag bahalka geeyo laakiin filimkii bilow oo boosamintadii layna tusaayo aan filimkii runtiisa loo gaarin baan qaylo bilaabaynaa lagama hor dhaco filimka waa in cabaar la daawada aan daawano filimka maya filimka suu ahaan jiraan naqaana anaga dad xamar ka imaanayaan haye dee waxaan waa iska ceeb maahe waa caadada magaalada muqdisho insaan markay 50 qofood dhimashada maraysaa laisku imaana iyo 100 qofood markaas kabacdi haddana waxaa laga soo bilaabayaa 0 marka waxaan waa wax iska caado ah waaye markii laga soo bilaabo adiga maxaa xamar maa degan tahay xoolo maa kaa yaala xisaab maa kaa taallay qalinkii soomaaliya haddaba banaanka kuu yaala adiga axmed madoobaa ku xukuma axmed madoobe halkaas buu kuu fadhiyaa baakin buu ku jiraa kismaayo cambe iyo moos buu nuugayaa maxaa fahamtay maaha waagii loola yimaado wax maskaxdiisu ogoshahay oo uu aqbalo waagaasaa masiirka adiga laftigaagaba xasan wax ka sii waalayo waxaad doonaysaa sii waa xasan la saxo xasan keenay u malayn maaye ninkani imika taageero maahay waxa weeyaan ma fahmayda filimkiisa xasan waxaan ha walaaqdo filimkaan si wanaagsan u daawano hogaamiye kooxyadii wixii soo shacbaxaane u yara kaadiya buu taagan yahay waxba asixinina waa ninkani aad ku fogyahay ya marka ninkani taageero maaha waa annana waxaanu leenahay ka daaya sida maya horta maya hal ma la rabaa magaalada muqdisho waa in magaalo madaxda laga raraa hadda puntland iyo jubbaland iyo somaliland waa inay intaa ka shaqeeyaan waa alana magaalo madaxda soomaaliya ma sii ahaan karto muqdisho waxay noqotay meel halaq mareen ah muqdisho waxay noqotay meel muxuu ahaa wax walba liqa eeg waxaa la rabaa mataqaanaa qofka meel uuna baawar iska bidayn because waa anana nin kaloo soomaaliya hadduu yimaadana saana qoryaha loogu guranayaa qori muqdisho lagama weynaayo muqdisho qori waxaa laga weynaa maalintii magaalo madaxda laga raro marka hadda ha loo ololeeyo beesha caalamka iyo qolooyinkan soomaaliya u duundoleeda ha loo sheego baydhabo ha la geeyo baraawo ha la geeyo xoogaa hortale magaalada muqdisho meel ka baxsan magaalo madaxda ha laga dhigo anigu waxaan qabaa haddii laga dhigo muqdisho inay noqoto magaalo ganacsi wadankan wuu iska xasilayaa laakiin magaalo madaxdii aan haysanayaa dee horey waxay u dhaheen aldhe qolooyinka xasan dowladnimo afrika waa magaalo madaxda in unu kaa joogin ra'yigaagasi waa saxoo caalamka way ka soo dhacaan waxaan iyo maraykanka aad arkayso waa la isku qabtay caasimo capital waa la isku qabtay washington DC waxaa laga dhisay mayoo jiri jirin markii caasimadda la isku qabsaday waxaa laga gooyey Virginia iyo Maryland baa laga kala jaray oo la yidhi
meel cusub aan ka samaysano state ba mu ahayn waxa laga dhex sameeyay Maryland iyo Virginia ama wallahi magaalada muqdisho shaakiro hal laga raro magaalada muqdisho magaalada madaxda markaas wadanka xasilaaya magaaladaas ra'yigaagaasi waa caqli saxa oo caalamku soo maray oo la isku qabsaday xuquuqda awoodda باوركا وواحد لو باهي اللوجيك ويان إن لقى الرول يلا مال عثمان سماينا قالوا وحكودنا قرير الصومالي هل صورة جلسة ما يده ورنا قامس لا داين تاسو قلتوا عاصمة الصومالي مقع قرير دو اسكو حريه عيد كلا فرقة تمنا نحس ساك الدمر كعيون بكسو هذا محل قاضي هذا يقولون تكون برا منك النساء قال اوريجينال ليه حد نكا وانوي وحو كليه متقانا أنا قرر ندم الرأي كرا مقالة المقدش ياس مقالة مدحد ولا بدلا مركي مقالة مدحد ورنا قضي إيجنا هذا مصبر وحوم متقانا دستور كأكو قرنا دستور كأكو قرنا دستور كأكو قرنا دستور شلي بحسن سومونه ما يحسن سوشيال مونه بدل إلا بدل محددة سو إنك ده هاي قرآن ما هو اللي بدل كرا ما وحن تن أبديا هو علنك Soomaaliya qariirada caasimada lama taabtaan waa heedi digiiso dadka marka caynaya daaroodo dhan caasimada isu indeen wara caasimada indhaha ka leexshanay caasimada rag baa ilaasanay difaacanay hay wal bulay mukal hay waxa la rabaa dad bini'aadamka inay isfahmaan fiican moogtaa adduunka magaalo madaxa markay xasili weyso laguna heshiin waayo matalaada loogu talagalay ay yeelan weydo because waxa waa magaalo madaxda waxa laga rabaa qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ah inuu ku dareemo safe inuu ku dareemo cadaalad inuu ku dareemo nabadgelyo inta haddii magaalada Muqdisho last 34 years laga weysanaa oo sababayeen dadka deegaanka u leh degan maanta 2026 adduunka iyadoo ay la adeegsanayo oo adduunka dayax gacmeedyo la tagay idinka ku jirtaan ariyaa kana waxa waay Ceesla ariyaa kana waxa waay Cali Gaaf iyo Maxamed iyo agoon yare inaad arcidi masuugayso dambe ma jirto magaalo madaxda haddeertaan waa in shaqo laga qabtaa magaalo madaxda Muqdisho waa in laga raraa ilaahu baraaw hal geey ilaahu markaa hal geey qali way su'aalan ku weydiiyay adiga adeerka Xamsi oo kursiga labaad ee dalku fadhiya oo maartay hogaanka ama awoodda ugu badan isagaaba in ku fadhiyo kursiga oo adeerka kugu matalaya halku isagu maray xasan baa la hadalaya bal adeerka oo naga daba waa marxuun in adeer uu dhintay Allah yarxamo تمرحونك حتى الرقدي سال كم مرة يميت كيسا وحتى ريزاريها عاننا عيب عليك ريزاريها عاننا انت وافق ما أنا فاجئ هذا عيل واحد شيء يسكتف سؤال شو مدة الصوماليين دون باركتو ما أنا بتاجي جوابا إن هذا أنا سردي هودن في قبا حكومة ما يأوكاد أنا قبل ها وحنا كيس قال له قصوا عليه قصوا شاركيو هم حاتري ما ينسوق شاركيو إنت أولها للدوين ما أنا بقرأ أنا بقول شيء جاي qofku waxa fiican wax reality inuu ka leexleexdo ma aha moogtahay libax waa ninkaas ana waxaan ku qoranayaa nisoo mood ma naga shadaan loo timid ana waxaan ku qirayaa wallahi libax ninkaas ana Jubaland ana Jubaland waxaan ku qirayaa Xamse ana uma matalo daarood ahaan igu matalin maamul ahaan igu matalin cid ahaan igu matalin Soomaali ahaan igu matalin ma fahantay anaga waxaan niri Xamse Allah yarxamo marxuum هاي محاكلة مدحوينانا كم ممثلة مرك هذا صومال متدو بكاشي كينياتي أعطانا قطك مرك لا سقب يتوب يا أرتو قفك حقوق بولي هاي وقاد كرو أوران كرو ديدي إيه اسمه قبيل هي خصب معها إيه دقيسو حتى الدولة لما أوران كرو مثلات عادية أو شعبية ما هي اسمه قبيل أنا هاي إن هذا الحين وايو ولين محمد سمير الرئي عبد الله ما حد حي ددوي وحقا والله بالله طلع اسمه والله ددوي وحقا حمسي لكن ما أبقى لك هوية ديق لا أنت كوارك مية إن هذا كان وحكي شيء مش ضد إسلامنا وما قيسا تين هذا كان هذا هو مرحون ولا مرحون كالباحث هدا تذكر مرحون مجلس أيقر هو مرحون حسب بسم الله من يوم كان بحنيات كي قرية اسكوتا وخايسة وصودو
قيس ما قال ما لقاش يعني ميلو سيحدو ويا قيس ما قال السير warbarin ministerka wadanku waa fiqi رايل weeyaan يا دايمون يا واشي وايد ولا سلام يا زكيو سلام annaga أبديت أنا قد بجي annaga ninka la yiraahdo Xamse qaysow adeerkaa me adeerkaa la raadinaysaa ka baafin وأنت أنا مثلا كوني محاكل دم maya qays mu matalay biswadun والله أنا مثل هدون نجيب لنا إياه waa matalay sug ma garanaysid زكي أنا تكفتر أقول لك حمزة ما تقف إيجا حيجو معناها مركز سواء أبترسده أبياش لك كل اللي حنينا أنا هذا كل سيد يدو كلام مرحوم واي ku ogahay me laakiin me marxuun dhinga hari maynay me aawe إذا كان ودتين مشهد قيس شاقة هاي war anagu wadashada aan wadanay waxaas ka dhaafay horta bal me ninkii إنه نولي إنك اللي نويدينا waxaa ka baxa niga saari maysa me adeerka axmed wuxuu yiri ma taqaanaa adeerka axmed wuxuu yiri ma taqaanaa markuu dhahay dhibil dhuxulad عقلك دارود واكا ساكا waraabaha daarood ma siina galbi daarood ha ku waalanay kala biyo eeg axmed maxamed islaam wuxuu yiri ma taqaanaa wiilkii raayan dirsanayna baron washay ku sameeyeen oo wiilkii raana ma hayno annaga marka xamse nama matalo eeg anaga axmed maxamed islaam nina dhaha soomaaliya noo matala sayidkaana matala in adeer isagaan ka dambayna isagaan ku dabafayna waxbaana way haddaba qaaliya iyo qaysow waxaad igu raacaysiin mid baan nii sheegay haddaba maanta ninka gacanta ka qaban kara xasan sheekh wato waa xamsi kursiga labaad ninka ku fadhiya ikaadi daan ku dhameeyo kursiga labaad ninka maanta ku fadhiya waa xamsi ninka maanta sharci doorasho gaarsiin kara dalka waa xamsi because xasan waqtigiisu ama isku raacno way ka dhamaatay xamse laakiin waa ninka maanta doorasho qaban kara dhex noqon kara mucaaridkii muxaafidba u qaban kara doorasho muuqata oo moogtahay ummadaas dhexa marka xamse waa marxuun iyo waa dhintay niga yeeli mayno hadduu martay ninkaas aad ilmaadira tihiin oday labaad iskugu tagtaan sidaad u sheegaysaan adiga qaysba waxaa niga socon mayse xasan waxaan uu qasayo iyo waxaan ulaaqay waad sheegaysaane xamse meel loogu tilmaama زكيو عبد الفتاح يا جيهان فيري عبد الفتاح يا جيهان محل يجري حسن الشيخ ابود بكوري ما كرا وامي نين كان فاميل كاسو كميد yahay ما دغيسنين انغا محل يجري سيدكني wuxuu ku yiri ninkaas reer buu ku biiray ninkaan anaga fiiri meesha 4.5 waa lagu kala metelaa anu laba state baan leeyahay labadeedii state ba dagaal iyo balaayo mooyaan muxuu noo qabtay ma sheegi kartaa war waxaa ka bax shalay tolaba waxa weyn roob la badbaadiyay dalka oo doorasho gaarsiiyay maanta ninka looga fadhiyo doorasho inuu qabto dhexana waa isaga haawo isaga markaa roble power buu lahaa kan markii horeba powerka waa laga ilaaliyay may shaarku eedaa ka leexin power buu lahaa waxa ka bax war meeshan wasaaradaha waa la qaybsaday niyo ayaa haybadu waxa la yiri haybadu ilaahay ku siiyay habeen laskama qaado waa ninkan haybadu ilaahay siiyay hadduu isagu iska qaaday zaki xaaji sabuurada dhan waa laga banaan baxay damayan dayman naga joojiya yiri zaki hadalkiisa جيبوتي اسماعيل علولة يا حسوسنا دايما سيدا الحسن ولا حسابتني سيدا تبرك الله حسابته حمزه ميدي زكي سؤال كويدينا سؤال كويدينا حتى حسن الشيخ اسغا اسامي مدحوينيه اسغا رئيس وزراء اسغا وزيركي اسغا اسمي guud hadii la yiraahdo ururka haweenka meel umulsooyinka looga hadlayo loo baahan yahay xasan diyaaradu u raaciya xasan iyo caruurtiisa anaga la dhawtaraama hadda haysto Soomaa دقنتي أول على هذه تيب حضي ودن ألبانيا ورقيس وملا صحتها إن هوتيل أليد لقلي وعن سهلة كلها أيلانا سهلة قبل أنا ها ميلان فورينا ما داوني سينما قانة عروتها دا ماذا أبغى ترام كودن كان هيستو كان اسكو بدواي هل وزير أول هيستمره وزير قاشان نقا بحايو جهان على صوت حالا صوت تفتح وزير كمالية بحاي جهان على صوت وزير كهبل بحاي هبل على صوت حسن إلا إيربوت إلا دكتة قفل بوجيستي dadka way ku magacaaban yihiin la meesha jeeg la ka qaataan mooyane hawsha isaga qabsanayo saa wasiir asii reerkiisa iyo kulli waxan qayso adiga wax badan ogeena jirto adiga wiigii hore dhexdiisa ahayd waxa shirayay waxa laga shirayay amniga iyo arrimaha gudaha dalka Soomaaliya dad ajaaniba imaaday meeshii laga sugayay inuu tago sirdoonki iyo wasiirkii arrimaha gudaha iyo waxaaba tagtaba jahaan iyo gabadha oo qabo oo adeerku yahay manay aaway xawaadle masambalo shay ku dhamaadaan kuna baaba'aan aaway sheekh Maxamed doorku ma laha Sheekh Shariif hadlay
sheekh shariif iyo aniga farmaajo hadlay siyaasadda waa ka noo baxna daaran saaxiib sheekh shariif iyo farmaajo hadlay noo daara wadbay qabteen ala sheego rabna adiga nin buul ah oo laga adkaaday warkiisa muxuu noo sheegayaa farmaajo iyo ninka la yiraahdo sheekh shariif madaxweyne xasan sheekh maxamed khudbadiisa ma haysaa ma dhageysan karnaa madaxweynuhu wuxuu yiri ma haysaa ninka la yiraahdo macallin mahdi khudbadiisa ma haysaa ninka la yiraahdo mahad salaad dadkaasaan dhageysanayna wadanka xukumo oo shaqaynaya anaga qof dabayli dilatay meel ku dayacan baadna le hebel dhageysta wallahi tagniyo aan dabaajo waqti update ina ahaatid baa la rabaa qofka update kala ahayn maxaa waay laakiin waa yeelow su'aalan ku weydiiyey raggan iminka mas-uuliyaddii ma uga degaysaa la leeyahay wasiir haddana hawshiisii qabsanayn xashaarkaan ku dhamay adeerkii waa yeel waa jeclahay halkaan dhamay qaysow halkaan dhamay adeerkii zaki maalinba ninka la waayeel maalinba barooniga hadda mar dhaweyto shaqan ku jiray wuxuu saarnaa qol shalaan maray dadkii meesha joogay oo dhan asaal rab in lagu goobto tartiib uga dhex baxay maanta asaal amaanay hadda waa baxay wuxuu rabaa inuu shaarkii dowladda maanta caawa xirto oo caawa dhan waayeel la burano waa sameeya howlgalka ka socda degmada cabdilcasiisna war baa soo dhacay ku soco mareena oo cid laga tegaya aanay jirin waxaana dowladda federaalku ciidamadeeda